kulan ballaaran oo ay maanta isugu yimaadeen cuqaasha gobolka Togdheer, maamulka gobolka kan degmada, wasiirka xanaanada xoolaha iyo la taliyayaasha madaxweynaha Somaliland qaarkood ayaa laga soo saaray go'aamo ku aadan nabadeynta deegaanka Kalshaale, taasoo cuqaasha iyo mas'uuliyiintii shirkaasi la yeelatay ay si weyn isula afkarteen in la ilaaliyo nabadda iyo qarannimada Somaliland. Chief Aqil Ahmed Kayse Maxamed Daahir oo kamid ah cuqaashii kulankaasi ka hadashay ayaa isagu tilmaamay in cuqaashu ay tahay laan ka sareysa dawladda oo iyadu taariikh ahaan ka soo shaqeyn jirtay xalinta khilaafaadka iyo ilaalinta qarannimada Somaliland ilaa sanadihii 1960. Waxa kale oo Chief Aqil Ahmed Kayse Maxamed Daahir ugu baaqay in xukuumadda Somaliland ay kala saarto dadka nabadiidka iyo dadka walaalaha ay khilaafkoodu ku kooban yahay baraagaha Kalshaale, kuwaas oo isku haya baabinta baraagahaasi oo kaliya. wasiirka xanaanada xoolaha deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee Somaliland Dr. Cabdi Daahir Cali oo shir jaraa'id ku qabtay kulankaasi kadib xarunta maamulka ee gobolka Togdheer ayaa sheegay in muhiimadda kulankaasi ahaa sidii ay ugala tashan lahaayeen cuqaasha gobolka Togdheer xalinta khilaafaadka deegaanka Kalshaale iyo difaaca jiritaanka qarannimada Somaliland, isagoo wasiirku tilmaamay inaan marnaba qarannimada Somaliland yootan gali karin. waxaanu wasiirku maruu ka hadlayay aasitaanka baraagaha Kalshaale ee colaadu ka bilaabantay uu sheegay in iyada oo la fulinayo amarkii ka soo baxay madaxweynaha Somaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo in maanta si rasmi ah loo aasi doono baraagahaasi. waxaweyne qodobka baraagaha aasidiisa ee la aasaya waxay ahayd habeen hore bay go'aankii ugu dambeeyay madaxweynaha bay ahayd, waana la aasaya moogtay imikada maanta laga bilaabo fiikad waa la fulinaya, waan la aasaa. hadda waxaweyne mowqifka haddaan ku sheegay baraagaha waa la aasaya, waana la aasaya. wasiirku waxa kale oo uu ka hadlay in dad badan isku khaldaan ciidan beeleedyada iyo ciidamada qaranka Somaliland, waxaanu sheegay in ciidamada qaranku aanay ahayn kuwa wada nabadgelyo darro, bal markasta ay heegan u yihiin inay Somaliland ka difaacaan cid walba oo ku soo xadgudubta jiritaankeeda iyo qarannimadeeda. saa loo hanan karaa waxa weeye mowqifka Somaliland ee labaadna waxa weeye in si allaale sidii nabadgelyo wada hadala wada tashiya iyo siyaasadda ee loo hanan kartaa lagu gudgaaro. marka saddexaad hadday timaado xaalad adag waxaynu u diyaarnahay ciidanka qaranku inuu difaaco jamhuuriyadda Somaliland, inuu difaaco xuduudeeda, inuu difaaco midnimada. inta ciidamada qaranka difaaca qaranku waa wax soo jiray 20 sanadood wax soo socday, in kasta waxa la gaaray intaa wax baa la gaaray. dawlad kastoo timaadaaba midna kuma nasiib dareen, mid 10 tallaabo gaadha, mid mayl gaadha, mid kilomitir gaadha waa la waday. wax caloosha iyo siyaasadda dawladda tii hore ee soo jirtay iyo tan imika ka baxayna maaha. qolo walba inta wada waxaana ka mid tahay maaha wax maanta soo dhaca ama xiisad ku yimaada ee waa waxa ku aala asaaska ugu horeeya dastuurkeena ku yaala, siyaasadeena ku yaala, barnaamijkeena ku yaala, madaxweyne kastoo yimaada ku yaala, axzaabta qaranka mid walba siyaasadda ugu horeeya ku yaala waxa weeye waa difaaca qaranka oo maalin walba jooday xuduudaha in la taabo. taa micnaheedu maaha in had iyo goor aan la joogno shibo ama caadifad ama colaad abuur aan ku kulmano siday laascaanood u timi arrimaha difaaca la ilaahay waxay ku timi muddo soo jiitamisay 4 sanadood bay jiitamisay tanna waqti ay qaadanaysa ilaahay baa in waqti dhow qaataa laga yaabo insha Allah ta'ala. geesta kale maruu wasiirku ka hadlayay arrimaha nabadgelyada waxa uu eedayn kulul u soo jeediyay kooxaha uu ku sheegay in laga soo abaabulayo dawladda federaalka ku meel gaarka ee Soomaaliya iyo maamul goboleedka Puntland. waa sida uu hadalkiisa u dhigay, waxaanu wasiirku ugu baaqay dadka reer Buuhoodle inay ilaashadaan nabadgelyada, isagoo tilmaamay in dhanka nabadgelyada ay dhinacooda mar walba ka go'an tahay ilaalinteedu. reer Buuhoodle ee marka ugu horreysay shacabka waa shacabkii reer Somaliland, dawladda maanta joogta waa dawladoodii. waxaanu leenahay colaad cid baa ku dhimateen inaan kuma dhasho. taa waxa waa baaq fariin waxaan ugu diray waxa weeyaan nabad iyo walaaltinimo iyo sokeynimo. waxaan laakiin aan u sheegay cidda ku soo dhuumanaysa ee colaad hurinaysa ee aan shacabka u danaynin, aan abaarta u danaynin, aan dadka u danaynin, ee dabada laga soo hurinayo, ee ay kooxa soo hurinaya mac kastaba ha sheegteen, ee Puntland ka imanaya, ee TFG ka imanaya, ee isku biirsaday kuwa waxaan leenahay ka daaya dadka colaada. kuwaas hadday jamhuuriyadda Somaliland ku soo qaadaan dagaalna waan isdifaacina. ugu dambeyntii hadallada maanta ka soo yeedhay wasiirka xanaanada xoolaha Somaliland ee ku aadan aasitaanka baraagaha deegaanka Kalshaale ayaa iyadu wax weyn ka tari doonta sidii lagu soo afjari lahaa colaadda deegaankaasi ka aloosan oo ay ku nafwaayeen in ka badan 40 qof oo labada dhinac ah. Maxamed Aawad Maxamed, telefishinka caalamiga ee Somali Channel TV, Burco.